ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay 21 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal culus oo duleedka degmada Bardaale ee gobolka Baay ku dhexmaray ciidamada dawladda oo gacan military ka helaya kuwa Amisom iyo waliba xarakada Al-Shabaab oo dhinac ah. Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay waxaana uu socday ilaa xalay fiidkii ayadoona gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in dagaalka uu ka dhashay markii dadka deegaanka ay u adkeysan waayeen cadaadis dhac iyo boob joogto ah oo ay ku hayaan Al-Shabaab isla markaana taasi ay sababtay in ay soo wargeliyaan ciidamada dawladda. sidoo kale gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay waxa uu sheegay in xarakada Al-Shabaab ay ku soo duuleen deegaano ay ka mid yihiin Raamacade iyo Xabaal Barbaar oo ay saldhigyo ku leeyihiin markaas kadibna ay ciidamada dawladdu gurmad ahaan u gaareen deegaanka kadibna uu halkaasi dagaalka ka dhacay. waxaana uu gudoomiyuhu intaasi ku daray in shacabka deegaankaasi ay gacan siinayeen ciidamada dawladda ee dirirtu kula dhexmartay halkaasi kuwa xarakada Al-Shabaab. ilaa hadda ma jiro hadal ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi shalay galikii dambe ilaa xalay ka socday degmada Bardaale ee gobolka Baay. maxamed bile gelle Somsa TV Muqdisho.